shirkada diyaaradaha ee maandeeq oo iyada shirkadiyada ku shaqeeyaysa guud ahaan gobolada dalka iyo caalamka intiisa kale yamayba iyada qiimo dhimis iyada ka sameeyay duulimaadyada iyada ka sameeyay qaybo kumid ah gobolada dalka meelo iyo qiimo dhimista iyada ku sameeyay shirkada maandeeq yamayba iyada kumid ah duulimaadyada magaalooyinka Muqdisho iyo Xudur iyadoo aan hore iyo linkasa faray beesa cadadiya iyada dhanta $150 waaniye ka adkayti haana kumide bulshada ka nool magaalada Xudur isla markaasina iyo aan safarayaan magaalada Muqdisho iyadoo aan iyada hatiya ka wali safarka Muqdisho iyo Xudur $100 oo kaliya arintaasi yamayba iyada to iyo si weyn iyo handhawaayeen maamulka iyo bulshada reer Xudur shirjaraayada iyo si wada jiriyoon ka qabadeen maamulka heer gobol heer degmo iyo madaxda shirkada diyaaradaha ee maandeeq yamayba iyo hadhawaayena qiimo dhimistan iyada sameeyay shirkadan iyadoo aan iyo ka baaqeen shirkado kale ee duulimaadyada ku sameeyo magaalooyinka Muqdisho iyo Xudur iyo guud ahaan gobolada dalka intii ay ka daysadaan maandeeq waana iyo naxan shacabka kiisho aadan cabdi abaare oo sugay iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Xudur yaan ku hireen ku hadalay soo waana sheegay intii oo eediyad iyo handhawaayeen qiimo dhimista diyaaradda maandeeq iyada sameeyay ma eediyad amaanan dadku ku dareera maandeeq eediyadaas handhawaayeen diyaarad la sugay eediyad lanka faraxsanyi yow marka reer Xudur guud ahaan may balanaha araga haytan dadaalka la hagili iyo juhdiga la hagili li qof aan talo ku qaadahay geeka marka isin dadaal muujidan juhdi ka biidan diyaarad ka soo inta kooyas qiimo geeka iyo maandeeq soo baday yaan ku baahna hoob taksi kooy buubaw boqolki maandeeq bilaa today dhiiban hoob hal matoore kooyto yaan mid qof lay qaadaas yaan boqolki diyaaran leena hoob maandeeq kooytona boqolki diyaaran leena hoob kuwiin kooytona boqolki diyaaran leena eedan ka faraxsana maandeeq may balanaha boqolki isin deegaanku ka bilawteen ma codsadaan in degmooyin kala gobolka yaan in la sida iska day Captain Maxamed Amin yaa suun saasta oo kale ku hadalay maanta waxaan u nimid alxaasil in aan dejino qiimo macquula oo aan ka noqosho lahayn oo aan la oranayn in berito ma aragtay suuqi baan haysanaa hadana kor ha loo qaado ma jirto hoos la in loo socdo soconayso marka Xudur qaasahan maanta maadaama ay aragtay in ayadii aan ku bilaawno qiimo dhimista oo aan ayada ka soo degan horta aad baan ugu bishaareynaa waxa kale oo soo xigtay insha Allah diinsoor oo aad hadda tirada ka ilmaad meesha la yiraahdo waajid ceel barday bardaale qansax dheer inta xurta baan hadda ka shaqeynaynaa inta kale markay noo xurowdana insha Allah waa galeena marka maandeeq sideedaba waa shirkad oo local ah oo dadkana ma aragtay si social ula dhaqanta way waxaan waa danta dadka iyo dalkaba loogadanada waa ugu jeedaan koofidaha xataa waa maandeeq pride of Somalia waa waxay Soomaalida ku faanto way sida baan ugu talagalnay waa inaan noqonaysaa insha Allah anaga muhiimadu waxay noo tahay rakaabka in ay helaan nasiino oo ay kuna safri karaan kuna tashani karaan muddo iyo waqtina ay ku xisaabtami karaan inay helaan oo ay ka doorbidaan in mootooyinka iyo baydhabo iyo maaragtay wadooyinka iyo ay korayaan ay diyaarad ka raacaan ayagoona cid sandaliyo ku haysan sama marka taas aanu ka shaqeynaynaa waajid ay noogu soo xigto ceel bardi ku soo xigto baydhabo iyo halka gudahooda ku soo xigto bay iyo bakool iyo dhammaan degmada qaabkan degmooyinka kala isku xirno si ka quruxsan inaan isku xirno moogi inaan ka liidana laga yaabo ma wixii kale oo ziyaadana insha Allah waan la soo socodsiinaynaa ma aragtay wakiilka inta noo joogo waa gooni sida la wada garanayo toolan saaxiibkay way oo aan hore u wada shaqeynaynay oo aan hore u soo wacay oo aad gacan ugu sii ma aragtay inay tan noo suurta gasho gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneek yamayba isugu sheegay intii eedata wal eedinka faraxa qiimo dhimista iyada sameeyay shirkada diyaaradaha ee maandeeq geeka may farxadneen shirkadan dheer oo maandeeq oo qiimo dhimiska soo baday qiimihii hore la ka raajay si la ku warqaba meel ka raajay $150
maandeeq may ka weelay $100 ka weelay taasi waa farxad reer bakool ka faraxsanyiin ilaa xalay madii warkan hana deeray magaalada waxa ka jiray damaashada ku jari way dabaaldegay eedalanka faraxay shacabka xudurna may sheegane in maandeeq hadhowaayaan la shaqeeyaan maandeeqna may ku codsadaan shirkadda maandeeqna may ku codsadaan in tariifada ka daran for example xudur waajid xudur eelbirde in tariifada ay ku soo daraan masaafo gaaban waay dadkaasna in qiimo dhimis loo sameeyo waa loo baahan yahay tan aad samayseenna maanta waa ku faraxsannahay waana ku mahadsantihiin waan idin soo dhawaynaynaa waan idinla shaqaynaynaa annagu mas-uuliyaddan waxay tahay inta badan ammaanka amniga xudur sidaad la socotaan ama sidiisin ku warqabtaan muddo 4 sano dheera iyo xoreeyo xudur dil qorshaysan kama dhicin qarax kama dhicin taasina walka qoytay wada shaqaynta shacabka iyo ciidamada amniga haddana annagu waxaan wala diyaarinaynaa in garoonka iyo amniga ay safaylan sugna isiin la shaqaytaan shacabkana ka dhawaytaan qiimaha hadda $100 wala laakiin marka dambaysiga su'aal ilaa siyaatan in deersada hadii ilaahay ado shaqayaan insha Allah iyada ma santiin shirkadii maandeeq ya wali ku soo biday hudur diyaaradooyinkii 8 sano hata hudur roobi sir bararka hay ya may baa maandeeq may soo biday qiimo dhimis rasmi been hayna dukumeenti wala afku erin hayna ya soo biday shacabka intii reer bakoole 4 sano hata hudur furuni 4 sano lambooli $50 dhiibin horma ku dhoof lambooli ka bilaaw ilaa beer booli $50 la mari geeka ma ilaahay mahtis ah oo eedanka faraasagna haddii uu golay deegaankeen in shirkadan arday meel eraay qiimo dhimista muhiimka oo qiimo gelinta suubid meel eraay eedanka faraasagna xildhibaan maxamed cabdi cali oo isugu kumid ah mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle yamayba isugu ka hambaliyay shirkadda maandeeq udamqadowka iyo andanqati shacabka Soomaaliyeed geeka way baroogna xudur oo ah magaalada madaxdii gobolka bakool ee dawlad goboleedka koonfur galbeed annagoo ah xildhibaanadii dawlad goboleedka Hirshabelle aad baan ugu soo dhaweeyay waxaan u jeednaa magaalo dhismaheedii horumar uu ka socdo amnigeedii macnaha muxuu ahay magaalooyin aan lagu tilmaami karin aysan jirin amni buux oo ka jiro muxuu ahay dadkeedina ay yihiin dad aad soo dhaweeyay ugu fiican xudur waxa waaye waxay ku jirtaa taariikhda macnaha muxuu ahay degmooyinka Soomaaliya kamid tahay diyaaradda maandeeq oo muxuu ahay aad muxuu ahay aan u hambalyeynaa maadaama shacabkii ay u damaqatay oo diyaaradihii muxuu ahay lacagta dhabalka ka qaadi jiray ay dantii ay fiirisay macnaha degmadii xudur ay ka dhigtay lacagtii $100 waxaan leeyahay diyaaradaha kalena waa inay ay ku dayadaan maandeeq haddaysan maandeeq ku dayan karin dadka Soomaaliyeed macnaha muxuu ahay lacagaas ma ka bixi karaan ha iska dhaafaan maandeeqan sugeynaa feel aan u gali doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo xamse maxamuud jilbadheere raadiyo iyo TV-ga dawlad goboleedka koonfur galbeed magaalada xudur ee caasimadda gobolka bakool